بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بينو مهدينينا ومهدو دلو سغناتي waxaynu ku sugannahay cigaal international airport hargeysa waxaa maanta halkan qaybaha kala duwan ee shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland shacab madax xisbiyo wasiirro hore iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee dastuuriga ah guurtida iyo wakiilada ay ku sii sagootiyeen madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo tan iyo intii uu talada dalka wareejiyay safarkiisii ugu horeeyay oo khaas ah oo isaga u gaara ugu kicitamay dalka isu taga Imaaraadka Carabta safarkaasi waa safar u khaasa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wax kale oo weheliyana ma jirto aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynihii hore ee shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee saaka soo galbiyey madaxweynaha ee leh madaxda axsaabta oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo hoggaanka xisbiga kulmiye iyo mudanayaal ka tirsan labada gole ee dastuuriga ah ee wakiilada iyo golaha guurtida iyo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa mudanayaal ka tirsan waxaan u mahadnaqayaa madax dhaqameedka salaadiinta iyo culamaa u diinka dhalinyarada haweenka aadka iyo aadka saaka wadooyinka u taagnaa ee soo galbiyey intii soo gaari kari weydayna waxaan ilaahay ka baryaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo nabad qaba inuu ilaahay dalka inoogu soo celiyo safarkiisaasina waa safar gaara oo madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi khaas u ah